haddaba iyadoo ay u eg tahay hadda marka in TPLF laga awood roonaaday laakiinse maanta waxaa hadlay General Wareda weeyaan taliyaha ugu sarreeya ee TPLF-ta moogtay ciidamada TPLF iyo TDF waxa uu sheegay in magaalooyinka hadda laga qabsaday iyo moogta ay u egtay TPLF la jabiyay laakiin waxa uu yiri annaga dhalama jabin waxa aanu bilaabaynaa buu yiri weerar celintii ugu weyneyd dhabarka ayaanu ka jabinay dhammaan ciidamada soo galay buu yiri Ethiopia Eritrea ee haatan goboladii Tigray iyo magaalooyinka ugu isku soo shubay gam ayaanu ka dhigaynaa buu yiri qubuurihii lagu aasi lahaa baa ay noqonayaan buu yiri magaalooyinkan ay soo galeen oo sidoo hadalka u dhigay General Wareda oo maanta hadlay waxaana uu sheegay marka oo uu yiri kulligood ha soo wada galaan laakiin waxaan ballan qaadaynaa weerarkii ugu weynaa buu yiri inaanu qaadayno taasi oo cagta aanu marin doono buu yiri dhammaan ciidamada huwantee soo galay qubuurahoogii baanay noqonaysaa buu yiri meeshan lagu aasi lahaa magaalooyinkan ay qabsadeen ee Tigray waxaanu wacad ku maray in hadda ay bilaabayaan weerarkii ugu weynaa oo weerar celisa oo marka ay xoogagaasi soo galay magaalooyinka waaweyn Tigray ay jilbaha dhulka ugu dhufan doonaan dadka qaar ayaa waxay sheegayaan in ay istifaacidu ka tahay moogtay xooga TPLF laakiin aanay awood hadda lahayn maadaama waxa cadeynaya la leeyahay magaalo walba waa laga wareegaya oo ka yaacayaan wax istifaacidu ma sameynayaan laakiin wararka qaar waxay sheegayaan in laga yaabo khidad dagaalba tahay oo ay doonayaan in afarta dhinac ka maraan oo marka ay magaalooyinkan ay qabsadeen xoogan marka ay huwan tahay laga yaabo sida uu hadalka u dhigay Wareda inay u dhacdo oo weerar celisay bilaabaan way dhici kartaa waayo sanadkii 2020 bishii November waa kuwii Tigray jilbaha dhulka loogu dhuftay waa kii moogtay xooga huwanta ciidanka Ethiopia Eritrea ay soo galeen gobolada Tigray muddo ku dhow 8 bilood ilaa 9 bilood ay haysteen bishii June waa kuwii iskaga baxay kadibna marka xooga TPLF iyagoo xamaasadaysan waa kuwii sheegay inay marka kumanaan subtida u qabteen inay dileen maxaabiis badan oo ilaa 10,000 ka badan waa kuwii soo bandhigay inay qabteen marka waxa lama yaraysan karaa la leeyahay awoodda TPLF-ta oo laga yaabo in hadhow imika runba tahay weerar celiska inay soo qaadaan laakiin se inta badan waxa u dhowdahay 80% in awoodoodii la yareeyay bal maadaama hadda dagaalka waxa ka qayb galaya waa diyaaradaha dronista marka waliba bayraktar bixita waa taa la leeyahay Ethiopia marka awood xoogan oo sidii tii hore oo kala ah TPLF ma laha baa leeyahay waayo diyaaradaha droniska ee Turkiga bayraktarta ay wataan ayaa la sheegay marka inay precisely si sax ah wax u tooganayaan sidoo kale waxay si wataan baa leeyahay diyaaradaha droniska ee Iran iyo moogta kuwa China oo sameeyay Winglong oo la sheegay Imaaraadku inuu siiyay haddaba duleedka magaalada Maqalla ayaa la sheegaya dagaalkii ugu xoogana inuu hadda uu ka socdo halkaasi oo la sheegayo in afarta jihaba ay ciidanka huwanta iskaga yimaadeen haddaba waxa hadda la sheegaya oo su'aal la gelinaya wada hadaladii nabad